Assalaamu calaykum. Wada sheekeysiga maanta isla fiirino. Xogaa dhawaaqa ha la iska fiiriyo. Isku day inaad dhawaaq soo duubto oo ay soo dirto. Ileen xogaa dhawaaqiisa wada sheekeysiga kale xogaa uu ka adeeg la soco. Wada sheekeysiga qaadanay oo ahay ka hadlayay ninkii isdilay Musa Kasarogani. Musa Kasarogani mazungumzahaas iyo midkaanba iska fiiri dhawaaq ahaan. Waxaa lagu dhahay waa marka laba qof oo bis waxay meesha hadlay. Laba qof bis meesha hadlay soo jeedin. Marka halka qof wuxuu hadlay si uu dheerta ujeeda dhageyso dhawaaqa. Waombolezaji wenzangu, kama mnavyojua tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumsindikiza rafiki yetu ambaye amelala hapa. Ikiwa kuna mtu aliyelia zaidi ni mimi. Marehemu alikuwa rafiki wangu wa dhati. Tulishirikiana naye sana. Nilimjua marehemu tukifanya kazi katika soko na tangu siku hiyo tumeishi kama ndugu. Aliomba radhi akikosea, kusaidiana na kadhalika. Nilipigwa na butwaa qofka labaad hadlay. Nilipigwa na butwaa niliposikia habari za kifo chake. Sikuamini kwamba amekufa, kwamba sitamuona tena au shini mwangu. Ninasikitika sana lakini Mungu hakosi. Ninaamini kwamba alimpenda zaidi ya tulivyompenda. Ombi langu kwa Mungu ni moja, kwamba amweke rafiki yangu pahali au mahali pema peponi au popote alipojitafutia siku zake za uhai. Nami nitapokufa anipeleke papo hapo tuendelee kuwa marafiki. Mwenzangu lala salama, tutaonana siku moja. Haya maana ahaan marka waombolezaji yawa waa dadka soo tacsiyeynaya. Waombolezaji wenzangu waxaa dhahnay dad isla joogtiin oo isku meel ka soo jeedin oo kale. Haddii hadda macallin aad tahay oo kale, dadka wenzangu ugu ciisto waxa waaye mates, you are mates. Dadka oo isku meel ka soo jeedin macallimiinteedu kale, you are fellows, my fellow teacher oo kale, macallinkayga oo kale camal, macallinka ila shaqeynayo oo kale camal. Waxaa dhaha mwenzangu hadduu hal yahay. Haddii badan yihiin waxa waaye wenzangu. Marka dadkan tacsiyeynayo waa waombolezaji wenzangu. Dadkan ila tacsiyeynayo kama mnavyojua saa u ogtihiin tumekusanyika waxaan isugu imaanay hapa inta kuwa ajili ya sababtoo ah kumsindikiza saa u dhaweyno rafiki yetu saaxiibkeen ambaye oo amelala hapa inta jifo. Ikiwa kuna mtu hadduu jiro qof aliyelia oo zaidi ooyey ni mimi wa aniga. Marehemu marxumka alikuwa wuxuu ahay rafiki wangu saaxiibkay waa dhati oo macnaheedu meesha waxa lagu macneynaa saaxiibkay rasmiga ah. Tuliyashirikiana naye aan isla shaqeynay waxyaabo badan isla wadaagnay sana saaid. Nilimjua waan aqaanay aqoon ayaa u lahay marehemu marxumka tukifanya kazi anagoo shaqeynayno katika soko suuqa gudaheed. Na tangu siku hiyo maalintaas laga soo bilaabane tumeishi waxaan ku noolaanay kama ndugu, si walaalaha ayaan ku noolaanay. Aliomba radhi, wuxuu weydiisan jiray wuxuu bari jiray radhi cafis akikosea hadduu qalad galo, kusaidiana inuu caawiyo na kadhalika iyo waxyaabo la mid ah. Qofka labaad hadalay marka wuxuu dhahay nilipigwa na butwaa. Eraygan pigwa na butwaa macnaheedu waxa waaye waan yaabay, shock waa la isticmaalaa marka. Nilipigwa na butwaa waan yaabay niliposikia markaan maqlay habari warka za kifo chake geeridiisa waxaas markaan maqlay nilipigwa na butwaa. Sikuamini maana aaminin kwamba in amekufa uu dhintay, kwamba in sitamuona na arki doonin tena marka au shini mwangu nolosheeda inta ka dhiman. Ninasikitika sana said ayaan umrugoona laakiin Mungu Ilaahay hakosi qalad magalaa. Ninaamini waxaan aaminsanahay kwamba in alimpenda uu jeclaaday asaga Ilaahay inuu jeclaaday zaidi said uu jeclaaday ya tulivyompenda sa aniga u jeclaanay si ka badan si ka qadar inuu asaga u jeclaaday ay aaminsanahay. Ombi langu ducadeeda kwa Mungu Ilaahay dhinaciisa aan ka weydiisanahay ni waxa waaye moja wa hal, kwamba in amweke inuu ka dhigo inuu meel dhigo rafiki yangu saaxiibka inuu dijiyo mahali meel pema fiican peponi jannada dhexdeeda au mise popote meel leh
alipojitafutia u raadsaday siku zake maalmihii za uhai oo noloshiisa. Siku zake maalmihiisa nolosha meeshu asaga isdhigay u raadsaday inuu meel fiican ka dhigo. Nami anigane nitakapokufa markaa dhinto anipeleke haigeyo papo hapo meeshaas haigeyo. Tuendelee aan wadno kuwa inaan ahaano marafiki saaxiib. Mwenzangu saaxiibkeyo kale lala seexo salama si wanaag leh ku seexo mise si nabad ku seexo. Tutaonana wanakati doona siku moja hal maalin. Marka kusoo celi macnaha